رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد. wuxuu ku saabsan yahay fadligii Abu Bakar baan ku soo jiray. marka musannifka wuxuu leeyahay حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني عن مالك بن أنس أبي عبد الله الأسبحي عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه سؤال القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عائشة waxay tiri خرجنا waan baxnay مع رسول الله rasuulka معيسى عليه السلام في بعض أسفاره safaradiisa qaar ka mid aan raacnay oon u baxnay xataa إidaa kunaa bilbaydaa'i meeshaa bayda la yidhaahdo markaan marayno aw bidaati اljeyshi daati اljeysh labadaa mid un weeyaane markaan marayno yaa la yar degay. halkiibaa marka waxay leedahay inqaطaca ciqdun lii kuul aan lahaabaa iga go'day, kuusheedii ay qabtay yo waxay leedahay waa iga go'day radia allahu canha. faaqaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam baa u nagaaday cala iltimaasihi iltimaasi alciqd, kuushaas raadinteedii baa loo nagaaday. waa xoolo ammaanana way aheed oo asmaa binta abubakar baa iska laheed oo caari ay ku aheyd caaisha radia allahu canha. marka lama dhihin kuul iyo wax macno aan lahayn weyn lama dhihina waxaa la loo nagaado hala raadiyo. xoolaha iyo ahamiyada shareecadu ay siiso iyo xifdulmaal waxay ka mid tahay daruuriyaadka alkhams, in xoolaha la xifdiyo la ilaaliyo la raadiyo oo la baylah tiro. shareecadeenna qiimo weyn bay ka joogtaa. marka nabigu waa u nagaaday in kuushii la raadiyo darteed. wa aqaama annaasu dadkii baa nagaaday dee macahu rasuulka maciis. hadduu nabigu yidhi kuushaas waan u nagaanayaa ha la raadiyo, saxaabadiina waa nagaadeen. walaysuu ma aha saxaabada iyo nabigu calaama biyo korkood ma degana, meel biyo iyo ceel iyo balliyo iyo muxuuha wakaab leh oo la kor degayna ma aha meeshu. walaysa macahum weelashoodana maaun biyo kuma wataan, weelashana biyo fiican kuma wataan, biyaba ma wataan, biyana mayna kor degin. faata annaasu dadkii baa waxay u imaadeen abaa bakrin, abu bakr sidiiq bay u imaadeen, waa caaisha aabbaheed ileenay. faqaaluu waxay ku dheheen alaa tara miyaadan arkaynin maa sanacad waxay samaynayso caaishatu caaisha. aqaamat min rasuulillaah nabiga calayhi salaatu wasalaam bay nagaysay, wa binnaasi dadkiina waa nagaysay macahu nabiga la jirkiisa iyo maciisa. kuul baa loo nagaado oy nabiga u nagaysay. walaysuu dadkuna ma aha calaa maa-in biyo kor deganaa. walaysa macahum maa biyana ma wataan oo weelashooda waa maran yihiin. gabadhan maad nagala hadashid. fa jaa abu bakar baa yimid wa rasuulullahi sala allahu alayh wasalam waadicun dejiyey bay leedahay caaisha ra'soo madaxiisa calaa fakidii bowdadayda. nabigoo igu jiifa oo bowda igaga jiifa. qad naama saaxdayna yo abu bakar yimid radia allahu canhu wa ardaa. faqaala wuxuu yidhi xabasti rasuula allah, ma rasuulki ilaahay baad xabistay calayhi salaam. wannaasa dadkiina waad xabistay soo maaha. walaysuu calaa maa-in biyana ma wataan oo ma kor degin. walaysa macahum maa biyana ma haystaan. saas miyaad yeeshay? waa canaantay. qaalad waxay tihi caaisha facaatabani waa i canaantay. waalidka waladkiisa iyo ilmihiisa isagoo weyn buu canaanan karaa oo u edbin karaa oo u caqli celin karaa oo canaanan karaa, mararka qaarna uu tallaabo iyo edbin uu ka qaadi karaa. waxay leedahay facaatabani waa i canaantay. wa qaala wuxuu yidhi maa shaa allahu wuxuu ilaahay doon an yaquula inuu yidhahdo canaana ayuu ugu sii daayey bay leedahay. wa jacala weliba canaantii afkeeda intuu soo gudbay wuxuu gudagelay yadcunanii inuu imudaayo oo igu dhufanaya biyadihi gacantiisa fii khaasiratii kelidayda. kelida ayuu wuxuu igaga dhufanaya gacanti isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam igu jiifa anna aan fadhiyo dhiibsanay, iyadoo fadhida oo dhiidhiibsan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabta uu kaga jiifo. waxay leedahay kelidii haddana iga garaacay. falaa yamnacunii ima diidin min ataxaruki inaan boodboodoon dhaqdhaqaaqo. waa qof ilan xanuunsane, waan isxajiyey oo bishintaan qaniinay. wax kalena igama reebin inaan dhaqdhaqaaqo ilaa makaanu rasuulillaahi, rasuulka calayhi salaam ahaanshihiisa uu ku sugan yahay iyo makaankiisa calaa fakidii bowdadayda korkeeda uu ku sugan yahay baa ii diiday inaan dhaqdhaqaaqo. intuu nabiga calayhi salaam hurdada ka kici lahaa iska un nafta un isku celi oo bishinta qaniin oo adkaysaan is yidhi bay leedahay. fanaama rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam seexay habeenkii xataa asbaxa ilaa waagii ka berya calaa kayri maayin biyo la-aan. haddii la toosay biyo lama haysto lagu weysaysto. faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi, aayaddii tayamumka sheegaysay badiilulmaa. haddii biyo la waayo asalkii dahaarada ah
bedelkii oo tayamum iyo caro ayaa ilaahay noo jideeyey fatayamamuu baa soo degtay tayamamuu saciidan طayiba caradaa daahirkaa ama wax dhulka korkiisa oo daahira ku gebagabaysta xalkaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keenay mushkilada ayada ahoo mar walbaba imaan karta in biyo la-aan dadka ay ku dhacdo in weelasha ay ka dhammaadaan biyahay ku wateen in meel aan biyo lahayn lagu furto lagu hagaago waa wax mar walba dhici kara marka midana ilaahay sabab ooga dhigay ayaddaas oo xal ah soo degtay marka faqaala usayd ibnu lxudayr saxaabigaa jaliilka ansaariga ah usayd ibnu lxudayr baa qisadii markay dhacday sidai u dhacday marka hore sharaysigii la sharaysanayay iyo markii dambe abshirsigii la abshirsaday iyo xalkii la helay ayuu tacliiqiyo wuxuu yidhi maa hiya biawali barakatikum middan ma aha barakadiinii u horraysay yaa aala abi bakrin abubakar ehelkiisiiow abubakar iyo carruurtiisa barakadii aan ku hellay tii u horraysay middan ma aha xugun dhan oo sharci ah oo xal ah oo ilaa qiyaamu saaca ah oo haddii biyo la waayo wixii sidii lagu gebagabaysan lahaa ama meeshii biyaha wixii geli lahaa wayse hadday noqoto xadathul asqar ah iyo hadday noqoto xadathul akbar iyo jinaabo carrada in lagu gebagabaysto xalkaa weyn baa yimid mana aha barakadaasi maanta aan helay tii u horraysa ma aha buu leeyahay hadda ka hor baa caaisha la afxumeeyey oo ifkii iyo been lagu beenuuntay oo la qadfay axkaam sharci ahoo xukmulqaadif qofka wax qadfa xukunkiisa iyo xaddiisa ayaa soo degay oo ilaahay ummaddana uu ku edbinayo qofka afxumada sameeyena lagu garaacayo lagu edbinayo faqaalat caaisha waxay tihi fabacatna albaciira ratigii un baan aarta neefkii geelaha un baa la kiciyey alladii kuntu calayhi aan fuuli jiray ratigii aniga aan fuuli jiray ee lagu qaari jiray guradiisa un baan kicinay isagoo halkan fadhiya fawajadnaa waxaan helay alciqda kuushi oo taxtahu taxta albaciir neefkii geela hoostiisa taalla baashii loo nagaaday ee mar walba ciidanka loo diray ee reedqaadka lagu sameeyey ee la soo waayey oo wax ilaahay meesha wax ka wado meel fogba ma jirtee ratigii meesha fadhiyaaba ku fadhiyaba haddii ratigii la kiciyeyba kuushi waa dhex taallaa marka dan buu ilaahay ka lahaa subxaanah xikmo weyn buu ka lahaa in ilaahay tayamumkaasi sabab ilan waxaa weeyaan cibradu asbaab baa jirta sababu nuzuul wax la yidhaahdo sababu nuzuulkaasa hadda un baa looga jeedaa ilahay iswaafajiyey subxaanahu wa tacaala waxay tusaysaa marka fadlu abubakar iyo carruurtiisa iyo ehelkiisa fadliga iyo karaamada iyo wanaagga ay leeyihiin waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya rasuulkeena sala allahu alayh wasalam xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ihtimaamka uu siin jiray dadka iyo waxa ay leeyihiin iyo xuquuqdoodana waad ka fahmaysaa inuuna fududaysan jirin qofka waxa walbahaarka ku haya waa u tanaasuli jiray waa la qaybsan jiray sala allahu alayh waaalih wasalam waxaa kaloo laga fahmaya ana nabiya sala allahu alayh wasalam laa yaclamu algayb ila mima uuxiya ilayhi min alghaybaat waxyaalaha qeybka ahee loo waxyooday mooyeene qeybka nabiga ma yaqaana sala allahu alayh wasalam intaa la dhalqalmaya ee biyo la-aanta la joogo ee la wareersan yahay ee kuul la raadinayo war kuusha ritigana ku fadhiya kiciya muna dhihin rasuulka alayh salaam cilmulqeybka ma yaqaano laa yaclamu algayb ila allah ilahay un baa garanaya subxaanahu wa tacaala xadaثana aadam bn abi iyaas qaala xadaثana shucba bn اlxajaaj can nacma sulaymaan alkahili qaala samictu dakwana abu saalix samaan yuxadiثu asagoo ka waramaya can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yihi qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha caayina buu nabigu alayh الsalaatu wasalaam yihi asxaabii ayuu leeyahay asxaabtayda aniga garabka igi aheed ee ila saaxiibtay ha caayina hadda waa asxaab khaas ah guud ahaan haddii asxaabtii khaaska aheed saxaabadii kale loo diiday inay dhexdooda iscaayaan min baabi awla waxaa ah dad aan asxaab ahayn inay saxaabada afka ku taagaan oo wax ka sheegaan laa tasubuu asxaabi cabdiraxmaan bin cawf iyo khaalid bin waliid baa xoogow dhex maray khaalid baa yar afxumeeyey deena cabdiraxmaan bin cawf afxumeeyey warkii baa nabiga loo sheegay calayhi salaam cabdiraxmaan oo saabiqiina alawaliin ka mid ah dadka abubakr sidiiq gacantiisa kusoo islaamay fii maka almukarama buu ahaa iyo khaalid bin waliid oo mar damba soo islaamay radia allahu canhum jamiican ma sinna laba qof oo siman maaha laa yastawi man anfaqa min qabli اlfatxidii wayaan dadkii qabla alfatxi nafaqada iyo sadaqada bixiyey iyo kuwii dagaalam iyo kuwii ka dambeeyey isku mid maaha mana sinna saas weeyaan marka laa tasubuu asxaabi ha caayina falow ana axadakum axadkiin anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin uxud wax lamida buurta uxud oo kaleo dahaban dahaba hadduu bixiyo ninkii qabla alfatxi joogay ee saxaabadii xilligay iska baahnaayeen sadaqada ay bixiyeen iyo kuwii markii xoolaha la helay wax bixiyey isku mid maaha walow kuwan dambe haba ka wax badnaadaane falow ana axadakum anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin uxud oo kale dahaban oo dahaba axadkiina oo saxaabada dambe ah maa balaqa ma gaarayo mudda axadihim saabiqiinta axad kamida mud uu bixiyey yani sacad muggii oo raashina walaa nasiifahu nasiifulmuddi mudka asagaa niskiis xataa ma gaari karo
إن يرأي مركا أي بحيان صحابة هوري أي أباهنايين أي قومانايين قاجاي هيسي خصاصة يباهي هيسي أي لكن ولا الله اسكو قدبيان اسكو دافيان إيا حوالب بدن وإذنكو فتوحات يا خير بدن هلي باهيدي إننا الله باهي تري وحنا إني هارين وحبضن بحثتين اسكوين معها رب درهم يعني خير من 1000 درهم تويان هل درهم أما هل شيلين يا كل شيلين مركا قارك خير بدنانايا هل شيلين أو مركي الله باهي بدنا بحسي marka adiga ugu baahi badneedna aad isdhaafisay iyo shilin baahi badan oo injirin aad bixisay xilli aad adiga ugu baahneedna aad bixisay isku mid ma aha marka nabiga kaleey salaam wuxuu leeyahay isku mid ma ragii hore ee qabla al-fath inta makalla furin wax baxsaday iyo kuwii dambe isku mid ma aha saadarteed saxaabadii saabiqiintaha niman yoo hal daayay buu leeyahay nabiga kaleey salaam la tasubbu asxaabi saxaabadii baa la kala celinaya oo la kala canaananaya maxaad u maleynaysaa marka inaan saxaabi ahayn oo quruntan dambe ee mutaakhirada jooga oo saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam wax ka sheegay ka waran kaasa ka waran taabacu jarir wa abdullah ibn daawud wa abu muawiya darir wa muhadir an al-a'mash intaas boo dhanba waxay ka wariyeen a'mash bay ka wariyeen sulayman bin mihran kaas waxa weeyaan shacbay mutaabicinayaan حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمر ابن عبد الله وي جد اوغي بالو نسبي شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه يا أيوة الرمي بوليه سعيد أنه أبو موسى مال ما كميدة وضع ويسيست في بيتي قرقي سوكو ويسقاطي أبو موسى قرقيسي يجوغا وويسيستي ثم خرج مركز حق مسجد كآذي وحليه فقلت وحامري أبو موسى هذا الكوت لا ألزمن والله ألزمن ما أنت وحان لازمي oon maciisa ahaan oonan ka dhaqaaqaynin rasuulallahi sala allahu calayh wasalam arrintaasu ku dhaartay walaa akuunanna ahaadee macahu la jirkiisa ee maciisa yowmii maalintaydan haadaay kala maantana nabiga umaan ku qorahay asaga looma yeedhanin kaal ii khidmee lama dhihin bawaab albaabka joogo ii tartiibiyo dadka soo galaya looma dhihin asaga arrintaasi iska niyooday maanta nabiga maciisaan ahaan wax weyn baana dhacay la akuunanna macahu yowmii haada qaala fajaa almasjida masaajidkii nabiga calayh salaam buu yimid oo inta badan nabiga aan laga weyn jirin guryihiisana ay ku dhowaayeen fasa'ala markaasuu dadkii weydiiyey can innabiy nabiga awey calayh salaam buu su-aalay faqaaluu waxay dhaheen dadkii meesha fadhiyay kharaja waa baxay nabiga wawajaha wuxuuna u jihaystay haahuna xaggaasuun usii socday oo wejigiisa usii jeeday fakharajtu waan baxay buu leeyahy calaa idrihi raadkii nabiga iyo meeshii liigu tilmaamay baan ka daba baxay as'alu anoo weydiin qofkaan arkaba canhu nabiga ma aragteen xataa dakhala tilmaantii ilaa uu ila galay biira ariis ceelkii ariis buu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam beer ariis la yidhaahdaa meesha ku taalla beertaana ceel baa ku yaala biiru ariis lagu magac daray meesha quba la yidhaahdo masjidu quba ku yaallo agtiisay ku taallaa beertaas ceelkaasna ku yaallaa waa ceelkii markii dambe cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu baashii fargashigii nabiga calayhi salaam uu khaatimka u ahayd ee muxamedun rasuulullah ay ku qoreed ee shaabadda iyo mahoorigana u ahaan jirtay markuu dhintay abubakar baa gacanta ku hayey abubakar markuu dhintana cumar markuu dhintana cuhmaan markiisi waqtigiisii baa ceelkaas isagoo ag fadhiya yuu kaga dhacay ama khaadimkiisii baa ku riday waa kay intii ceelkaas biyihii laga dhuray oo laiskugu tegay la waayey baasha iyadeed fargashigeed halkaasi ku dambaysay ceelkaasuu nabigu calayhi salaam biyaha iyuu lahaa beerraw ku dhex yaalay halkii buu galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fajalastu waxaan fadhiistay buu le abu muusa cinda albaabi albaabkii baan ag fadhiistay wa baabuhaa albaabkeeduna wax weyn ma sii ahe min jariidin bay ka samaysanta laantimireed saa la iskugu dhadhajiya beeraha waad aragtay meelaha qaar wax yaroo dakada ahoo aada usii adkeen iyo albaab looga dhigiyo looda iyo xoolaha iyo xayawaanka un reebi dadkas ay iska faydi karaan wa baabuhaa min jariid laantimireed la isku dhadhajiyey bay ahaayeen xataa qadaa rasuulu llahi sal ly slam ilaa uu nabiga ka bogay xaajatow dantiisii fatawada'a waa weysaystay nabiga waa soo xaajo gutay markaasuu weysaystay markaasaa faqumtu ilayhi xaggiisii baan aaday rasuulka calayhi salaam faidaa huwa nabigu jaalisun wuxuu ku fadhiyaa calaa bi'ri ariis ceelkii ariis ahaa korkiisii buu fadhiyaa watawasada wuxuuna dhexda kaga fadhiistay qufahaa karkaarkeedii wakashafa wuxuuna fayday can saaqay labaysa dhudhun wadallaahumaa labadii dhudhunna waa foorariye waa raariciyey fi lbi'ri ceelkii buu ku raariciyey ceelka karkaarkiisa iyo tirasha ceelka lagu wareejiyey iyo wadaanta lagu soo jiiday iyo ayaa qofka halkaas intuu nabigu fadhiistay oo lugihii ku foorariyey ceelkii labadii lugaanoodna saa u yarfaydtay saaqaynka dhudhumihii ayuu yarfayday rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaasuu iska fadhiyaa rasuulka calayhi salaam wuxuu leeyahay fasallamtu calayh nabigii markaan u tegay waan salaamay uma insaraftu waan soo gadoomay riwaayooyinka qaar
asagoo niyadaa ku yimid iyo haddana nabigu wuxuu ku yidhi maanta albaabkaasaan kugu ogahay markii dambea loo ijaazeeyo o loo ogolaaday marka horese asagaa isa soo saaray xadiidu anas binu malik oo dhihi jiray walam yakun lirasuuli illaahi bawaab nabigu wax bawaabo albaabka jooga ma lahaan jirin iyo xadiidkana isma anfinayaan gurigiisa albaab joog iyo wax waardi a ma lahaan jirin laakiin waa sida haalibkaa mararka qaar oo loo baahdo dadka in la tartiibiyo loo baahdo rasuulku inuu fursad u helo umuurihiisa khaaska ah way dhacday ka haadihi qisadan oo kale fasallamtu calayhi waan salaamay uma insaraftu xaggii albaabkii baan usoo gadoomay fajalastu cinda albaab albaabkii baan ag fadhiistay oo faqultu waxaan idhi anaa saa isla hadlaaya la akuunanna bawaaba rasuuli illah rasuulka albaab jooggiisa aan noqonaya alyawma maanta albaabkaasaan ku qorrahay wax iska soo geli ma laha qofuu nabiga u idmo u fasaxay mooyeene fa jaa waxaa yimid abubakar baa yimid nabiga calayhi salaam wax yar hadday ismoogaadaan abubakar waa raadinayaan raadin buu bilaabay nabiga calayhi salaam buu soo raadiyey asagana waa kan fadafaca albaaba albaabkii buu riixay waa dhaqdhaqaajiyey fastaadana riwaayo kale iska soo gal ma aha waa gargaraacay faqultu waxaan idhi buu yidhi man haada kan albaabka riixayo taabanayo waa kee faqaala wuxuu igu yidhi abubakrin waa abubakar iga fur faqultu waxaan idhi calaa rislika iska sii degano halkaana iska sii joog calaa mahlika tartiib isug waan tegi nabigan aadi waan kuusoo fasax qaadiyey uma dahabtu waan tegey faqultu waxaan ya rasuula allah haada abubakrin abubakar baa kanoo imaaday yastaadinu idan buuna weydiisanaya albaabkii buu taagan ma ka soo daayaa faqaala wuxuu yidhi idan lahu soo idan oo soo daa wabashirhu biljanna jannana ugu bishaaree wax weyn baa dhacay maalintaas jannana ugu bishaaree baa la yidhi abubakar nasiibkiis faaqbaltu markaasaan waxaan soo qaabilay abubakar xataa qultu liabi bakr waxaan ku yidhi udkhul soo gal warasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yubashiruka biljanna jannuu kugu bishaaraynaya acdamu bishaara wey bishaaro qof loo bishaaray midda ugu weyn weeyaan basharadii iyo jidhkii oo dhan baa wada dabci oo wada farxaya nuur iyo iftiin baa wejigaa qofkaa ka dhalaalaya qofkii la yidhi ahlujanna tahay maanta wax loo sheego dhegihiisa maqlaan wixii ugu weynaa weeyaan allah nagu daro kuwa ahlujannaha subxaanah waxba kuma aha ilahi subxana wataala awoodiisa yubashiruka biljanna fadakala abubakr waa soo galay riwaayo kale alxamdu lilah intuu yidhi yuu soo galay fajalasa wuxuu fadhiistay can yamiini rasuuli illah ceelkii uu nabiga fadhiyey dhanka midigtuu ka fadhiistay macahu nabiguna la fadhiistay fi lqufi karkaarkii wadallaa rijlayhi labada lugoodna waa raariciyey fi lbiiri ceelka kamaa sanaca annabiyu siduu nabigu sameeyey sala allahu alayh wasalam baa isagana sameeyey wakashafa can saaqayhi dhudhumihiisana waa yar faytay uma rajactu waan soo laabtay buu le abu muusa fajalastu albaabkii baan ag fadhiistay waqad taraktu akhii buu le nin walaalkaya ayaan kaga imaaday guriga yatawada isagoo weysaysanayo wayalxaqani isoo gaarhayo waan weysaysana waan ku soo gaaraya sii soco mid igu yira walaalkaya jiray markaasaan faqultu waxaan walaalihiis abu ruhmi iyo abu burda labada waa la dhihi jiray mid abu ruhmi baa la yidhaahdaa ina qaysa cabdullahi binu qayska walaala ahayeen midna abu burda la dhihi jiray midna abu ruhmin waqiila abu muxamedna waa jiray faqultu waxaan idhi in yurid illahu bifulaan ilaahay hadduu la doono hebel khayran khayr hadduu la doono yuriidu wuxuu jeeda akhaa walaalkiisa walaalkayga hebel ahaaye waan kaa dan imaan lahaa hadduu maanta ilahay khayr la doono yaati bihi buu keeni maanta wax weyn baa socda samadii baa furan ijaabaa socota bishaarooyin baa la qaybinaya hadduu ilaahay khayr la doono maantuu imaanaya fursad baa socotee ilaahay ooma qorin de inuu maalintaa imaado fa idaa insaanun qof baan haddana maqlay yuxariku lbaab albaabkana dhaqaajinaya faqultu waxaani man haada waa kuma faqaala wuxuu yidhi cumar bnu lkhadaab waa cumar raggan maxay saaxiibo ku noqdeen ama martabada u gaareen yaan la dhihin waa rag saa iskugu qoraa bay ahaayeen fi saraa'i wadaraa fi lafraaxi walatraax hadday farax tahay hadday culays jiro hadduu masare iyo muxuu culays u jiro hadday abaar jirto hadday dhibaato jirto dhib iyo dheefba saasay u daba taagneen rasuulka sala allah alayh waali wasalam adduunka cumar weeyaan buu yidhi ibnu lkhadaab faqultu waxaan idhi bu yidhi calaa rislik halkaa lasii taagnow uma ji'tu ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam baan u imaaday fasallamtu caleyh waan salaamay faqultu waxaan hada cumar ibnu lkhadaab cumar baa kanoo yastaadinu idan weydiisanaya faqaala wuxuu yidhi idan lahu idan wabashirhu biljanna jannana ugu bishaare faji'tu waan u imaaday faqultu waxaan ku idhi udkhul soo gal wabasharaka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam biljanna rasuulka ilahina jannuu kugu bishaareeyey fadakala waa soo galay fajalasa maca rasuuli illahi buu fadhiistay calayh salaam fi lqufi karkaarkii can yasaarihi midig abubakar baa ka fadhiya bidix buu ka fadhiistay maanta wadalla rijlayhi labada lugoodna waa raariciyey fi lbiiri ceelkii buu ku foorariyey uma rajactu markaasaan kusoo laabtay albaabkaygii fajalastu waan fadhiistay faqultu waxaan idhi in yurid illaahu bifulaanin khayra hebel hadduu ilahay khayr la doono yaati bihi waa keenaya wuxuu jecel yahay walaalkii inuu maanta imaado bishaaradan ku darmado fajaءa insaanu qof baa yimid yuxariku lbaaba albaabkii haddana dhaqdhaqaajini faqultu waxaani man haada waa keekan faqaala cuثmaan binu cafaan weeye
فقلت على رسلك ماشى هذا كسي دقنو فجئت إلى رسول الله بأنو إمارة عليه السلام فأخبرته وأنو الشيغي فقال وحجر إذا له إذا عثمان سودا وبشروا بالجنة جنة أو بشارة على بلو امتحان دشت تصيبه كل عدونت جنة أو بشارة لكن وحكاه الرئيس امتحان هذا كل صبر امتحان كاسي نصيبه ليه هاي بلاي امتحان بكل عدونه واتيد عليها دي عثمان رضي الله عنه بدل ما لمريي وواح مساجك النبي عليه السلام يا سقب واسعيي إنه كنت كذا لمرق على دلودي وهو عالكي بير الروما يا سقب إيبيا وقف ككدجي إنه عبينتي لودي بيع عصبه كلاله أو علاش ضنها وكعبي رضي الله عنه وارضاه مركي دمان انت لا soo jabsaday baa gurigiisa lagu gowraco lagu dilay fajiitu waanu imaaday faqultu lahu waxaan ku yiri udkhul soogal وبشرك رسول الله وحكوه بشارة صلى الله عليه وسلم بالجنة جنة على بلو امتحان باس بعد تصيبك وكاسيب دونت امتحان باس لو مرين دونا فدخل وسوق فوجد وركاس وحيره الحمد لله يوحس قدر والله المستعان جنة هي بشارة والحمد لله مصيبة الله شيئا إلهي بان كلمة ويدي سنة اللهم صبر الرواية كان اللهم صبر إله صبر بان ويدي سنة يا بير فدخل وسوق فوجد وحوها لعثمان القفة كركاركي من النبي عليه السلام وفديه أبو بكر عمر وقد مريء بحسمي تيركي دينا ay ku fadhiyeen oo buuxsamay ayuu helay fajalasa wuxuu fadhiistay wajahu hortiisa nabiga min ashiq al-aakhir dhinaci kale ceelka ayuu ka fadhiistay oo ku soo jeedsaday qala shariik ibn abdullah ibn shariik ibn abi namir ninkii lagu lahaaway haduu magaciisa abihi sheegay shariik ibn abdullah ibn abi namir yaa wuxuu yiri qala sa'id ibn musayyib wuxuu yiri fa awaltuha wa han ku fasiray quburtoodi waxa weeye ta'wiil al-akhbari fi al-yaqdah wax soo jeed la sameeyo sidii ru'yadii la fasirayo way tabiirka waxa lagu yaqaanay hurdo wax lagu arkay hada wax soo jeed ku dhacay bay ahayd qisada dhacday iyo suurada dhacday ee soo jeedka ku dhacday ayuu wuxuu leeyahay wax aada ma ahayn waa wax u baahan in la tacliiqiyo oo la fasiro tafsiir bay xumbaarsan tahay macno markaasuu tafarrus ku sameeyo firaasa wuxuu leeyahay waxaan ku fasiray waa sidii qubuurtooda ay tahay nabiga Abu Bakar Umar saas isku garab jiifaano qabri hal meel bay ku xabaalan yihiin عثمان كسو هرجيدكودا حباليه بقيع مقبرة البقيع halkaasuu ku xabaalan yahay oo ka soo horjeedo dhinaca kala saas oo ugu soo jeeda saxaabadan saddexda labada saxaabi iyo nabiguna way isku meel bay jiifaan oo ku xabaalan yihiin marka sidii ay maalinta ceelka u fadhiisteen saddexdoodan ay qubuurtoodana u siman tahay sidoo Uthman uga soo horjeeday bay qubuurta qabrigiisana uga soo horjeedaayo xabaalaha Madiina ee reer Madiina lagu xabaalo saxaabada nabiga asaga uu kamid yahay ku xabaalan yihiin baqiic ayuu ku xabaalan yahay qaala had marka shaahid waxa weeyaan hadda أبو بكر فضل جيس الشيخ عمر وكجرا وإيمان والله كيني دون سجن عثمان وكجرا حدثني محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن أبي دعامة السدوسي أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم والرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد أحدا بورت أحد بو النبي عليه السلام فوري وبورت دير مدينة تعالى وأبو بكر والله فوري وعمر والله فوري وعثمان والله فوري وبور دير أدو ديروي دمبعي bay bareen way korka kaga istaageen markaas faraja fabihim buurti uxud baa ligligatay way dibaaxisay oo way dhaqdhaqaaqday waxa laga yaabaa shawq iyo hilow iyo jacayl iyo maxabada iyo soo dhaweynta nabiga kaleey salaam wuxuu yiri uxud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wa buurna jacayl on jacayl buu dhigi rasuulka kaleey salaam markuu meel fog ka arko asagoo safar ka yimid waa farxi jir rasuulka hada uxud wa hadhihi taaba buu dhigi sallallahu alayhi wa sallam jabalun yuhibbuna wa nuhibbu markaasuu wuxuu leeyahay markuu nabiga kaleey salaam ay fuuleen Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman afartoodas iyo dhaqaaqay markaasuu wuxuu yiri uthbut sugna oo deg dhaqdhaqaaqa jooji uxudu ya uxudu buurta uxuday asagaba jaamid buu ahaa iska angagan dhaqdhaqaaq iyo dareen laguma baranin hadduu dhaqdhaqaaqay wax dareen la u ekaaday sida waxa dareen kale loola hadlay uthbut uxudu ya uxudu sugna oo dhaqdhaqaaqin fa inna alayka korkaada waxa ahaday nabi wasiddiqun rumbadane وشهيدان يلا شهيد كل من دونته في رسولك عليه السلام معلم من معالم النبوة كميتاي من قبل فضلنا وحيوتاي صحابة أبو بكر والصديق تو أبو بكر والشهيدان وعمر يا عثمان لبضب الشهيد بهاين أو قعان كقردران أي كل دينتين مركز شهيد قال لك يعني كل شماه هذا كقردران هذا كصور دين هذا كصور ما هذا كصور إيه هذا كصور شهيد باتاي حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر بن جويرية أبو الرافع النميري أيوة هاي حدث صخر بن جويرية عن نافع جويرية وأسماء مشتركة كمت أسماء مشتركة رجل الله بحيه هوين كان الله بحيه أي كمت
waxaan soo marray hadda ka hor laba nin oo isdhashay oo labadaba magac haween wata yaa sheegi kara juwayriyatu ibnu asmaa baaraka allah fiikum dayib sidoo kale way kana sakhr ibnu juwayriya can naaficin ana cabdallahi ibnu cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi baynamaa ana calaa bi'rin anoo ceel korkiis taagan buu yidhi nabigu alayh salaam waa ru'yo anzicu shubaaya minhaa ceelkii ka shubaaya biyihii ja'anii waxaa ii yimid abu bakr wa cumar baa ii yimid waa ru'yo iyo hurdo waa ru'yadana waa waxyi faأkhada abu bakr baa wuxuu iga qabtay adalwa wadaantii buu iga qaaday fanazaca markaasuu shubay danuuban hal wadaana aw danuubayni laba wadaan buu biyo kusoo shubo kasoo bixiyey wa fii nascihi shubidiisuna dacfun tabardarri baa ku sugan wallahu yakfiru lahu ilaahay baanu u dambi dhaafaya maxaa yeelay xaalad iyo duruuf haysatay bay aheede wax asaga uu ka gaabiyey ma ahayn 2 sano ayuu hayey meesha abu cumar uu hayey 10 sano uu hayey iyo dhowr iyo 10 sano sooma ahayn meesha uu cumar radi allahu canhu futuuxaad fara badan iyo islaamkii oo la waasiciyey juqraafi ahaan dhulkiisii asagu meeshii jaziirat alcarabka muna ka dhex bixin maxaa yeelay asxaabu riddadii iyo kuwii diinta ka baxay fallaagoobay buu la dagaalamayey marka sidaa waa lagu fasiray wallahu yakfir lahu uma akhadahaa waxaa ka qaaday wadaantii abu bakr ibnu khadaab cumar baa ka qaaday min yaddi abi bakr buu ka laacay oo fastaxaalat markaasay wadaan bay iska ahayd caadi oo dhexdhexaad ahe waxay isku wareejisay istaxaalad waxay isku wareejisay fii yadihi gacanta cumar markay gashay qarban sibraar bayba noqotayba sibraar weyn oo intaasoo maqaar laisku talaya ayay isku bedeshay falam ara ma arkin buu nabigu calayhi salaam cabqariyan mid sayid ah sayidulqowm daki oo caqli badan min annaas dadkana kamid ahoo yafrii shubaya faryahu shubidda cumar oo kale fanazaca waa shubay oo shubay xataa daraba annaasu ilaa dadka ay ka ahaadeen bicadanin sabadii ay ahaadeen meesha xoolaha markay cabbaan ay yar fadhiistaan haddana durduurta ay ku sugaan yaa cadan la yidhahdaa ama cadan bida qaala wahba wuxuu yidhi alcadanu mabraku libili geela meeshuu fadhiista ee markuu cabo uu durduurta ku suga wey yaquulu wuxuu leeyahay xataa rawat ilibilu geel baa lagu tilmaamaya dadkii ilaa geela ay ka dheragtay oo fa anaakhada iskeed iskaga fadhiisatay geela ordaaya didaayay markuu biyihii ka dhergay mid walba halkaasuu iska fadhiistay marka cumar radia allahu canhu futuuxaadkii faraha badnaa ee furashooyinkii meelo badan la furtay waktigiisii iyo wixii khayr iyo maal fara badan la helay iyo wixii ummadda cadaalad iyo kala dambeyn iyo deganaan la helay nin walba meeshiisi uu ku qaboobo u ku degay iyo wixii maaragtay shareecada waasicinteedii iyo ijtihaadaadkii faraha badnaa ee uu ku soo daray arrimahaas oo dhan marka la isku daro waxaa la gaaray nahda ayaa la gaaray cilmiya iyo maaliya iyo muxuu ahaa ardada iyo intaba waa la gaaray wax badan oo horumara xadaثana alwaliid bnu صaalixin qaala xadaثana ciisa bnu yunus qaala xadaثana cumar ibnu saciid bn abi xuseyn almakiy can ibn abi mulaykata can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal inii lawaaqifun buu yidhi ibnu cabaas anoo taagan fii qowmin dad anoo dhex taagan waktigii cumar radi allahu canhu la warjeefay wey anoo dadkii ku dhex jiro o dhex fadhiya oo dhex taagan fadacow allaha ilahay bay u baryeen licumar bn khadaab cumar baa kii isagoo ku jira masaajidka salaadii ku jira abu lu'lu almujuusi cabdulmuqiira bnu shucba ayaa waran ku dhuftay kelida ka geliyey markaa isagoo sakaraada yaa la iskugu imaaday nafti baa ka baxday dadkii waxay guda galeen wax u duceyn way wax kala la waayey fadacow allaha licumar bn khadaab bay u duceeyeen waqad wudica calaa sariirihi sariirtii meydka isagoo la dul saaray idaa rajulu nin min khalfii gadaasheeda taagnaa yaa qad wadaca wuxuu dejiyey mirfiqahu jiqilkiisa calaa mankibii garabkayga yaquulu wuxuuna leeyahay raximaka allah allah kuu naxariisto in kuntu waxaan ahaa la arjuu kii rajaynaya an yajcalaka allahu inuu ilaahay ku yeelo maca saaxibayk labadaadii saaxiib macooda inaad ahaato xagga qabriga iyo jannada macooda inaad ahaato labadaba yaan rajo in badan ka qabay liannii sababtu waxaa weeyaan anigu kaiiran in badan baan kuntu ahaa asmacu kii maqla rasuula اllahi salى الlahu alيه wasalam yaquulu isagoo leh kuntu waxaan ahaa aniga iyo wa abubakrin abubakr wa cumar baan waxaan ahayn facaltu waxaan sameeyey aniga iyo wa abubakrin abubakr iyo cumar waxaan sameeyey wandalaqtu waan tegay aniga iyo wa abubakr wa cumar baa tagnay in badan isagoo saa iskugu larhaaya magaca abubakr mar walba sheegi ayaan in badan maqli jiray kol hadduu sidaa nabiga calayh salaam uu kugu ahaa adduunyada marka u noolaa haddaad qabriga gashaanna isku qabri inaad gashaan aakharana maciisa jannada aad noqotaan rajo weyn ka qaba buu le fain kuntum waxaan ahaa la arjuu kii rajaynaya an yajcalaka allahu inuu ilaahay ku yeelo macahumaa abubakr iyo nabiga macooda nabiga abubakr macooda inuu ku yeelo yaan rajo ka qaba faltafatu markaasaan qofkii gadaasheeda ka hadlaya xuley ibnu cabaas yaan saa u fiiriyey faidaa huwa caliyu bin abi aalib waxa waaba cali bin abi aalibba marka jeceelka iyo maxabada uu qaba fiiri cumar cali siduu u jecel yahay fiiri khulafaa raashidiin walaalihiisii ka horreeyey cumar iyo abubakr
cadaawada ka dhacaysay oo waxbay yeeleen oo way bahdileen oo xaqiisii bay boobeen oo warka hadda shiicada ay meelaha loo ooyeyso mujuusta ah wax beena inay tahay ogaada. xadaثana moxamed bn yaziid alkuufi qaala xadaثana alwaliid bn muslim alqurashi can alawsaac cabdiraxmaan bn camr alawsaaci can yaxya bn abi kahiir alyamani can moxamed ibn ibrahim can curwata bn zubayrin qaal sa'altu cabdاllahi bn camr baan su'aalay can ashaddi ma sanaca almushrikuun mushrikiinta waxay ugu daraa ay ku sameeyeen birasuuli illah fal ay ku sameeyaan falka ugu xumaa nabiga calayh salaam kufaaru quraysh gaar ahaan bal yaan weydiiyey cabdullahi bn camr oo bal noo sheeg dhibaatada ay u geysteen nabiga way fara badneed bal mid inooga soo qaad mihaala qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay buu leh ibnu cabaas cuqbata bin abi mucayd mujrimkii cuqba bin abi mucayd ahaa baan arkay buu yihi waa kii xumaa wey markii la dhaho nabiga waxyeeladiisa furuq buu soo dhihi markaa wuu soo boodi waxyeelo nabi maxamed haddii la dhaho yaa u istaagay ashqa alqowm buu ahaa qowmka ninka ugu dhurdarsan ugu baxsan buu ahaa cuqba bin abi mucaydka maan arkay oo jaa ila nabiyi nabiga u yimid calayhi salaam wahuwa yusalii nabigoo iska tukanaya alla u tukanaya ayuu u yimid fawadaca markaasu wuxuu dejiyey ridaahu guyiisi xumaa gaalka fii cunuqihi luqunta nabiga calayh salam uu luqunta kaga xidhay ama guyi nabiga uu huwanaa buu ku xidhay luqunta kaga marji faxanaqahu bihi markaasuu ku ceejiyey xanqan ceejin iyo marjin shadiidan daran buu saa ugu soo marjiyey fajaءa abu bakr baa soo booday oo yimid xataa dafacahu canhu ilaa uu ka tuuray faqaala wuxuu yihi ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waqad jaءakum bilbayinaati min rabbikum maxay tahay jazahan xumidiisa ma waxaad dilaysaan nin inuu yihi rabbii waa allah rabbigii abuurtay ee khalqay ee maamulaya waa allah inuu yihi keliya maa u dilaysaan oo qoonsanaysaan waqad jaءakum bilbayinaati min rabbikum xujooyin cadcad iyo wuxuu inala yimid aayaad cadcad buu rabbi xaggii inaga yimid alxamdulilah marka haddii laheedeen ku shukrin laheedeen miyaad marjinaysaan oo dilaysaan inkaarta xagga inagaga dhacday weeyaan waa ka tuuray hadalkii wuxuu ku hadlay uu ku hadlay muuminu aali fircawn hadalkii qiimaha badnaa uu ku hadlay asagoo muuminu aali muxamed muuminu muxamed ummati muxamed wey abubakr radia allahu canhu wa ardaah halkaas u taagnaa difaaca nabiga calayhi salaam iyo ka warhayntiisa ayuu mar walba u taagnaa abubakr sidiq radia allahu canhu qaala almusanifu raximah اllah waxbaan ka boodin ya waxbaan kama boodin sooma baabu manaaqibi cumar ibn اlkhadaab cumar ibn اlkhadaab manaaqibtiisii iyo fadaaishiisii iyo ammaantiisii u imow abi xafsin la dhihi jiray nabiga kuyadaa u bixiyaa la yidhi abu xafs xafsu waa ismu min asmaaءi اlasad libaxa magacihiisii kamid asaga gabadhiisa xafsaa la yidhaahdaa ee xafs may ahayn nabigaa u bixiyey marka abi xafsin waa kunya waa laqab calaa suurati kunya ku yimid alqurashiyi alcadawiy radia allahu canhu cumar ibn اlkhadaab ibnu nufayl ibn cabdilcuza alqurashiyi alcadawi radia allahu canhu wa ardaah saxaabigaas u imow xadaثana xajaaj bnu minhaal laqabkiisana wuxuu ahaa faaruq ayaa la dhihi jiray nabigaa u bixiyey ma ahlu kitaabkaaba u yaqaanay malaa'igtaa u bixisay faaruq baa la yidhahdaa xadaثana xajaaj bnu minhaal qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn اlmaajishuun qaala xadaثana moxamed ibn اlmunkadiri can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal qaala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam baa wuxuu yihi ra'aytunii waxaan is arkay oon xasuusnahay dakaltu ljana anoo jannada galay nabiga alayه الsalaam jannada intaasuu iska geli jiray o la tusi jiray mara cayaanan iyo ciyaanan mara ru'ya faidaa ana waxaan arkay birumaysa gabadhii rumaysa la dhihi jiray imra'ati abi طalxa abi طalxa xaaskiisii anas binu maalig hooyadiis laqabkeedaa rumayse aheedoo indhaha ayay wax ku laheeda saasaa ramsiga loogu magacaabay magaceeda sahlaa la dhihi jiray kunyaday caanka ku aheedna umu sulaym bay ahayd gabadhaasaan arkay oo jannadii ku dhex jirtaba mubasharaat اljana dadka jannada lagu bishaaray kamid tahay jannada nabiga alay slam haduu ku arkay waa ahlujanno wa samictu waxaan haddana maqlay khashkhashatan khashfatan baan maqlay khashfa khashfada waxaa weeyaan xaraka iyo dhaqdhaqaad jaanqaaf lugaha iyo socodka qofka kabihiisa iyo shanqadhiisaasa waxaa la dhaha khashfa jaanqaad baan maqlay iyo shanqadh jannada dhexdeeda hortaydi faqultu man hada waa kuma kan iga hor shanqarayo faqaala hada bilaal waa bilaal bin abi rabaxa radia allahu canhu wax camal wanaagsan oo uu dadka kale uunan la imaanin buu la imaan jirayoo markuu weysaysto wayse kasta xilli kastaba ha ku soo aadee laba ragcadood sunnuu tukan jiray wa ra'aytu waxaan arkay qasran buu nabiga calayh salaam guri sar ah fillaah oo qurux badan dahab iyo yaaquud iyo zabarjad iyo hadda jannadu ka samaysan tahay qasri baan arkay bifinaa'ihi ardaagiisuna jaariyatun gabadh ay joogto gabadh baa iskaga weysaysay tatawada riwaayo kala imaan doonto ku ag weysaysanaysa faqultu waxaan ihi man haada yaa iskale gurigan iyo qasrigan waxaan isku qoofalan gabadhan faqaala wuxuu yihi qofkaan weydiinayo jibriil iyo malaa'igta licumara cumar baa iskale bay u dheheen
فأردت وحان طمعا أن أدخله إن أوغس أقله ومرصه في قرية مرافق ديسية وحا وككوبان يهي سان عمر أو شيغو فأنظر إليها أرصه في ريان طمعي فذكرت وحان حصوصت غيرتك عمر وافد يا عمر ماشى قصة لو شيغاي النبي عليه السلام كشيغاي عمر ومسير كادي أيان حصوصتيو سيداس درتيد بان اسكغا سو عرري فقال عمر با وحو يري بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار انتو اوهن انتو لا دحاي انتو اوهن لا دحاي با وحو يري aabahay hooyada lagu furay rasuul allah alayka aqar ma adiga korkaadan ka masiiraya qalbi baa ku jira ilayeen qarkood alayha aqaru mink ma ayadaan u maseeri adiga kaga maseeri nabi allah maxay ugu soo fiirin weyday oo kale way jannada maxaa aniga oo aan ka maseeraya rasuul allah marka rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka qaar saxaabadiisa waxa ku sifadoodii tilmaamahooda marka qaar waa shay jir oo umar radiyallahu anhu wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa shadiidul ghayra qof masayr badan inuu ahaa masayrka cumarna wuxuu ahaa midaan waswaas iyo shaki kale aan sii qabine diinta difaaceeda iyo ilaalinteeda iyo akhlaaqda wanaagsan iyo anshaxa fiican unbuu u taagnaa oo mar walba uu dhihi jiray aan dulaal naga soo gelin xataa haweenka nabiga waa kii dhihi jiray nabi calayhi salaam nabi allah haweenkaada xijaabka amar mid baari ah mid faajira buu la hadlay afka kusoo taagi markaasaa xijaabkii soo degay oo la xijaabay xadathana saciid bin abi maryam qaala akhbarana layth ibnu sacdin qaala xadathanii cuqayl ibn abi khalidin can ibni shihaab azuhri قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله أنه رسولك عليه السلام اكتيس جوغنا حلي إذ قال وحجيري النبي عليه السلام بين أنا نائم أنا هرد رأيتني في الجنة جنة أسوارك فإذا امرأة هويني بابا تتوضأ ويسيسنيس إلى جانب قصر قري وين وقيمة بابا للعيس بابا سلام ويسيسنيس فقلت وحان لمن هذا القصر قري يا إسكالي قبلنا قري يا كسر جدا قالوا لعمر با إسكالي فذكرت غيرته وحان حصوصت مسيرك عمر فوليت وان جيس مدبرا حال نبرك دوي فبكى عمر باوي وقال أعليك أقار يا رسول الله ماذا كان مسير يا هذا ريرك يقول يا عاد قرشو ميان كان مسير رسول الله قف كلام كان مسير حدثنا محمد مركز مشاهدك حوي عمر رضي الله عنه يا جنديسي يا غورغيسي يا غبديسي اريمها سو دنبا سغو جوغا لو بشاريي رضي الله عنه ويسدا maxay tahay baa isweydiiyay weysada waa ahkaam takliifi ah آخرنا تكليف يا مشقة يا واجبات وحلا سساري ولا سكرها ما ولا هي واسه وحاول للتكليف وما وجزنا يزي للنظارة والتنظيف النظيفين يذكروا حواي واحد تكليف عليه سماها أما ما هي وحيد قبله الدنيا ده وناك سناء ويسداسي كوكري جننا كوكري سداسا بما يقول إليه الأمر جننا يجري دون تقوى قيمها بدن الدنيا ده ويزن جرتي عمر رضي الله عنه حاسس زي نقنس حدثنا محمد بن سلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك المروز عن يونس بن يزيد الليلي عن الزهري قال أخبرني حمزة ويورم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال إنه يري بين أنا نائم شربت أنا هرده أيا وحان أركيب يري أنا وحباية يعني اللبن عانا حبيب النبي عليه السلام هرده عانا الله كان حتى أنظر إلى أن كأركيب النبي يري إلى الري عكرانتي مركز شرابك اللي عبو waxa ka dhashay ray baa yiraahdaa marka cunto la cunana waxa ka ratime farta raadka waxa la yiraahdaa shabac marka hatta andura ila ray okaraantii qofka calooshiisa inuu ka dareemi jiray yaa waxaan arkay buu yiri yajri asagoo qulqulaya fi dhufri cididayda inta calooshi ka dhargay yaaba cidida waxa arkay dharagti soo gaadhay aw fi afaari cidiyayga thumma nawaltu umar ban siya hambadayda caanihi qaaluu saxaabadu waxay dhaheen fama awaltu ya rasuul allah waxaan caano caadi ah maahe waa ruyadana saad u aragtay si aan ahayn bay ku fasirantahay maxaad ku fasirtay qaala wuxuu yidhi alcilm cilmi baan ku fasiray buu leeyahay cumar hadda baxar buu ahaa radia allahu canhu fi lcilm muwaafaqaat wax la yidhahdo balahaaba intuu hadlo oo yidhahda sidaasaa fiicnaan laheyd ee aayad qur-aan oo waafaqaysa soo degi jirtay markii dambena intaasoo ijtihaadaada ummaddu ay ku badbaaday oo islaamka wax weyn oo qiima ugu fadhiyo cilmi ah ayuu ijtihaaday radia allahu canhu waardaa cilmi buu lahaa xadathana moxamed bin cabdillaahi bnu نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله مكور بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحجر النبي أريت وحاليت سيف المنام يهردو أني أنزع أرى الشبايا بدلو وذان بدلو بكرة نافك جيلة قال انت ناف قال جيلة مقار لقبحيي وذان لقسميي أيام وضاه هشوين باك مارتك مقار وين مرك على قليب وحان طول تاجناه قليب وعل بكر تاجناه فجاء أبو بكر بايمد
فنزع وحوش بين ذنوبا هل وذان أو ذنوبين لم وذان نزعا شبيطان ضعيفا يرتبر درا والله يغفر الله وحي مكان نسقان إلهي بأوك بايه ثم جاء عمر بن الخطاب يمين فاستحال وحيسكو بدش غرب الصفرار فلما رمى أركن عبقريا من سيدة يفري الشبا يفري وسوء الشبا يوكله حتى روى الناس وذلك إلهي كعو كان آذان أو ضربوا أي كدقان وكفرستان بعضان صبادي أي كفرستان قال ابن جبير سعيد ويان وحليه العبقري عبقري عتاق الزرابية زرابدة عتاق يذوي العبقري عبقري لفظي كلويان أو هذا عبقري عمر لو قلت المامي ما هو حكام الله آيات قرآن وفسرها يا بفرادات كيد عمر عبقري قاس لو قلت المامي قفك سيدك عاقلك إمامك هقاميها الناجحة أيها لولا جيدة لكن عبقري وحولا جيدة وآيات قرآنه وإلهي وكوله متكين على رفرف خضر وعبقري حسان marka cabqarigaas ayada lagu sheegay waa jannadii alaabadeedii cabqari waxaa la yiraahdaa itaaqu zarabi zarabidu barkimahana waa la yiraahdaa zarabi mabthuufa gogasha laftirkeeda oo isdul saaran oo raaxo oo moolaana waa la yiraahdaa marka waxa weeyaan cabqarigaasi cabqariyin xisaan ilaahay uu leeyahay itaaqu zarabi barkimaha waan wanaagsan wey itaaquna waxa weeyaan alxisaan waxa wanaagsan min alcatiiq alawwal waxa wanaagsan ma catiiq la yiraahdaa waxa hore qadiimka ee wanaagiisa horeeyay وقال يحيى وحويري يحيى بن زياد الفراء يحيى بن زياد الفراء وحوليه الزرابي هدو هذا عبقري كو شيغي لفظا عبقري او كو فسري عتاق الزرابي زرابيدا ووناغسدا قيمها بدن بركبها قيمها بدن لفظي مركز زرابيه او قرانك صاروري ايو مركز مصنف كهدرا دحسي دحغلي وحوليه الزرابي الطرافس ويان طرافس طرافسku bustooyinka waa la yiraahdaa iyo gogosha jilicsan waxa jilicsan ee bisaadka ah ee gaar ahaan sariirta la kor saarto si aanmaadka jaabir soo marro kale at-tanafis waa mariya jilicsan iyo firaashab jilicsan laha khamalun ahdaab leh farqiye leedahay la raaraca raqiiqun jilicsan hadii marka zarabi la sheegay abqarigaasna lagu fasiray waxa soo aroortay aayad quraan oo zarabiya mabthuufa مبثوثة دي بوسكر راعي من باب الاستطراد بالين هذا فرق لرئيسي بركة وحوير مثبوبة مبثوثة أي كثيرة فربضان وزرابي مبثوثة آيات كلوي مركة ورانا خضر وعبقري حسام بكاهد الآية كدب عبقري باح وحالقوا فسر الزرابي زرابي ذونا محالقوا المامي في نفس الآيات كلا الزرابي مبثوثة محالقوا أي كثيرة فربضان نفرية ماله بضاعة حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري يعقوب إبراهيم بن سعد كوي قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حاء وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كوي ماذا لبلا سند عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أبي وقاص سعد بن مالك قال وحور استأذن عمر بن الخطاب عمر بأيضا ويديستي على الرسول النبي عليه السلام قرقي انتو يمت وعنده النبي اكتسنا نسوة هوين من قريشة أيها جوي هوينك النبي عليه السلام إن بدنا قريشة كملها يكلمنه النبي الله الله يرهوينك ويستكثرنه بضنا ويكذا البيان نفقد يبيلك ورويريه وما يسبدله وحنا كرد بيليه يستكثرنه الكلام والسياح رواق واليه يستكثرنه يطلبنا إكثار النفقة النابض بيليه وين الله البيان عالية حال كروك على أصواتهن رواق ولا صوت كوضا على صوت النبي وصوت كيسي ككرمرين وانت لا ترفع اصواتكم ويسودقين ما هي arrimaha ninkii xaaskiisa waa loo tasaahulaa ama ma ahe waxa weeyaan kuwa cod dheer oo soo iska cod dheer ba ku jira hal mar bay wada hadlaya isku darkoodii oo codkooda kor u kacay ee mid walba gaarkeeda dib loo fiiriyo kama koraysa nabiga intaba waa lagu fasiray waxay ahaataba kor bay u dhawaaqayeen qeyladoodii buu maqlay Umar banaanka maqlay ala aswaati nabiga sawdkiisa ka kormareen falamma istaadana Umar ibn al-Khattab Umar markuu idan weydiistay oo la yiri soo gal قمنا ويبودين ويكعين فبادرنا الحجاب حجابك بيكون دقدقين وحقك عليك كمرين قنضوبك بيبنوا عقل فريستين فأذن له رسول الله نبي رؤيد ما عليه السلام عمر رجل سوقل قبله مركا واضي بلاغة سيقلين فدخل عمر با سوقلي والرسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قسلي نبي قسلي بعمر سوقلي فقال وحي أضحك الله سنك يا رسول الله إلهي عرب إلى قال كع قسلي سيو يعني واحد كو قصش أو كو فرحه أو كافرحيو إلهي يكون مقشيه كتصي ما حد كو قسلي سابق أنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحي عجبت وحال لياب من هؤلاء اللاتي هوينكن كنا عندي أكتيد فرديي يقول قيدي يقول بوقاي فلما سمعنا مركي مغلين صوتك هذا الكادي
ibtadarna alxijaaba bay ku yaaceen oo kuwa halkan ay tuurayin hadda shib wey macallin dugsi oo arda dugsi hadlays usoo galay oo kale wey waa aamuseen ibtadarna alxijaab qaala cumar baa wuxuu yidhi fa ant markuu dee aamusiinayo suus bes hadduu dha macallinka ardada hal mar bay shib dhahayaan soo ma qaala cumar baa wuxuu yidhi fa anta adiga rasuul allow anta adiga axaqu mudnaan badan an yahabna inay ku weyneeyaan oo kaa hebaystaan oo ku tawqiiriyaan yaa rasuula rasuul allow in aniga tawqiiriyaan oo iga hebaystaan adiga rasuul allah ka mudnaa adiga inay kaa hebaystaan oo hadalka hoos kaaga dhigaan oo kaa xishoodaan la rabay uma qaala cumar wuxuu yidhi ayagiibu ku jeedsaday ogama harin meesha yaa caduwaati anfusihinna naftooda kuwa cadowga ku ahow aan wax iska ogaan meesha laga soo gaari atahabnanii ma aniga cumar aad iga hebaysanaysaan walaa tahabna rasuula allah rasuulka ilaahay kama hebaysanaysaan miya xaggee waxay nagaga dhaceen faqulnaa markaasay ka hadleen oo waxay dhahan nacam haa adaan kaa hebaysanayna aan kaa cabsanaynaa maxaa yeele anta adiga afad xagga ereyga iyo hadalka adag waa aqladu qalbiga xaggiisana qallafsan min rasuulillahi ka qallafsan sala allah alay wasalam nabiga waa noo cudur daari adigase waa nagula soo boodaysaa faqaala rasul lah sal slam baa wuxuu yidhi ayhan iwad ya bna alkhadaab iska dhaaf kuwan hadalkoodee warku sidaa ma ahe wax kalaa meesha ku jire ayhan bal iwad ayhanta waxaa la dhahaa qof hadalkiisa aad jeceshahay ood xiisanayso ood maaragtay rabto ayaa kala goonaya iwad aad leedahay ayaa la yidhaha ayhan la yihahda ninkii shaacirka ahaa ee nabiga alayh salaam ninkii shicirkii camar binu salti miyuu ahaa gabaygiisa soo qaaday ayhan bula bal wad waa kii dhihi jiri ayhan ya bna alkhadaab war cumar oo hayahda bal wad iska dhaafo waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay say sheegeen ma ahe maa laqiyaka shaydaan shaydaan kulama kulma saalikan xaalaad socoto waddo fajan waddo aad socoto waddo weyn oo waasac cariiri iska dhaafe shaydaan kulama kulma qadun weligii ilaa salaka wuxuu qaadaa fajan wadda hayra fajika waddadaadaan ahayn adiga shaydaan iskuma imaataan waxaan buuqani waxaana shaydaan kama madna marka haybe ilahay wuxuu ku siiyey xataa shaydaan uun waddada kula mari karine macnaha waxaa weeyaan cumar radia allahu canhu fiilah maanta la amaanay qof shaydaan laga badbaadiyey macsuum waaye marka cismaduna waa nisbi ambiyada cismadooda ilaahay uu ilaaliyey subxaanahu wa tacaala ee ilaahay u waajibiyey cisma uu u waajibiyey bay leedahay inuu marka uu awliyadiisa iyo maarata saalixiinta qaarna uu shaydaanka ka ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaduna waa wax dhici kara waa kan shaydaanka waddada qaada wadda aan ahayn buu qaadaya isma ma arkaysama shaydaan xadaثanaa muxamedin marka haybada iyo siduu shareecada ugu adkaa ee diinta ugu adkaa qowlka xaqa unbu ku hadli jir qof kasta ha ka caroodo qof kastana ha ka naxo xataa qaaluu tarakahu اlxaqu bilaa sadiiq bay dheheen xaqii baa wuxuu ka yeelay cumar saaxiib la-aan waxa laiskugu imaanaya xaqaan baa laiskugu imaanaya hebel bay isku dhow yihiin iyo hebel bay saaxiiba yihiin iyo hebel buu warkiisa maqli ma jirto xadaثanaa moxamed bn muhanى alcanaz abu muusa qaala xadaثanaa yaxya ibnu saciidin can ismaaciil ibn abi khalidki qaala xadaثanaa qays ibn abi xaazimin qaala cabdullahi baa wuxuu yihi maa zilna kama nazuli ibn mascuud wey cabdullahi ibn mascuud dadkii hore islaamay buu ahaa nabigu alayh salam oo dhib loo geysan buu arki jiray markaasuu deena inuu uqayliya mooyaane ma hadli karo wuxuu leey maa zilna kama nazuulin acizatan inaan nahay dad sharaf leh mundu aslama cumaru cumar maalintuu soo islaamay laga bilaabo inaan haalib nahoon muuqano oo aan sharaftaanada ay muuqata kamaa nazuulin buu leey maalintuu soo islaamay sharaftii bilaabatay kor u socotay maalintuu dhintayna furfur iyo waxaa bilowday naqsi baa bilowday waa kaan soo marray qisadii xudayfa bn yamaan radia allahu canhu marka maalintii horena uu soo islaamayna kor baa loo kacay waa kii muslimiintii ashuunku aadaankaha banaanka usoo baxeen waa kii hijrada banaanka uu isu soo dhigay deena intaasoo wata labaatameyo baxay marka cumar radia allahu canhu cizi buu ilahay diinta oga dhigay ducadii nabiga alayh salam baana ku dhacdayoo ilaahay oo labadan cumar ibn khadaab iyo abu jahl oo asagana camr bn hishaam la dhihi jiray midka agtaada ku wanaagsaneed jeceshaha iisoo islaami buu yihi markaasuu cumar bn khadaab ilaahay waafajiyey cumar bn khadaab baa islaamay abu jahl fircawn lumma baa asaga la dhahaa cumarna faaruqulumma la dhahaa faaruqulumma قال xdثnا cبdان cبداللhi بن cثمان بن جبل أخبرnا cبداللhi بن مبارك المروزي قال xdثnا cمر بن سعيد عن بن أبي مuلaykة أنه سمع بن عabاس يقول وضca cمر markii la warjeefay warankii xumaa ku dhacay gaalka uu ku dhuftay waxaa la dejiyey cمر عalى sariiri sariirtiisaa la dul saaray fatakanafahu الناas min الكنف dadkii baa gaararka ka istaago isku wareejiyey yadcuuna iyagoo duceynaya وayusaluuna ku salinaya oo u duceynaya ama ku tukanaya qabla an yurfac intaan la kor yeelin oo qabrigiisa la geenin ayay dadka iskugu imaadeen wa ana fiihim buu leeyahay ibnu cabaas dadkaa ku soo aruuray oo duceynayaan ku jiray falam yarucnii ima argagixinin ilaa rajulu nin baa iga nixiyey aakhidun mankibii garabkayga saa u haysta oo ku tiirsan faidaa caliy bin abi aalib buuba noqday ninkii fataraxama calaa cumara cumar buu u naxariis dalbay oo ilahay u baryay inuu u naxariisto sidii dadka qaala wa qaala markaasuu wuxuu raaciyey maa khallafta axadan qofna kamaadan tegin axaba ilaya aan ka jeclahay
أن ألقى الله إن إلهي لكل بمثل عمله عمل كيسو كلا منك أذيك إن أن كل ما عمل كيسو كلا قف أرجعلها كمالتي يعني أنا أسحولها أنا عمرو قف متشيرنايا أو تشعل إن عمل كذا كلا إلهي وكل ما كمالتي أنا قف سيد مارتان وتشعلها هذا قوضة ما خلفت أحدا قفنا كمالتي أحب إلي كجعله أن ألقى الله إن إلهي لكل بمثل عمل كيسو كلا منك أذيك وأيم الله ما قلت أرتي إن كنت وحانها لا أظنك لهي أن يجعلك الله مع صاحبيك إنه إلهي لبضع ذي صاحب معوذك يالي دونه اسكو مان الوحبالي دونه جنة اسكو معها دونتان أرنت إن ملينا يكما الزولين بوليه وحسبت وحانا حساب تازيقو كينا كل حسابي أني حساب تايدا وحاقو حنباري أرنتا كل حساب سنة وحسبت من المحاسبة وحساب تاسي إن سيدا وحساب تمو يقول حنباري أني كثيرا إنبضا إن أن أسمع النبي مقل جري عليه الصلاة والسلام حسبت راس من الحساب ويان من أظنه حسبه وينقون كرتا يدنا وحن سا أقول ملي ونقون كرتا وحن حسابته أن كل ساي ملها وحن كل سايا وحسابته يوحن باري أني كثيرا إن بدني أن أسمع مقل جري النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذهبت أنا وأبو بكر وعمر باتقني دخلت أنا وأبو بكر قال لي خرجت أحابها أنا وأبو بكر بحني وعمر لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام مركا ورقي أفكك وهين جري حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن أبي روبة وقال لي خليفة بولي وقال لي وحوت وبخاري وقاو خليفة بن خياتك شيخ البخاري قاوي كبار شيوخ البخاري وكمدي حدثنا محمد بن صواي وكهمس بن منهال قال وحير هذا حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سعيد النبي عليه السلام وحوف ليحودا بورت أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ما لسعدي فرجف بهم ولل لقتي بورت بالقلقتي فضربه بالرجل نبي لقتيس وكل فتي وقال وحير أضبط أحد وسقنو ورقرقا قدا فما عليك إلا نبي كرك هذا وحكى لما النبي باصارا أو صديق أوضب معنا واواي أو صديق وصديق يصديق رمضانا أو بكر وي أو شهيدان وشهيدان لما قف الشهيد رواية كان وشهيد هذه لو اسم جنس وحيكون عايز مركز جنسي قاس لبضاس مركا انت سكرك هذا ايه وسي شيء رسولك عليه السلام صديق النبي ومركا النبي عليه السلام نبوذي سوى تاغنت ابو بكر صديق نمدي سوى تاغنت لبضا نبا وحاله سي شيغاي اني كو دمان دونان شهاده في سبيل الله كو شهيد دونان حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد ان زيد بن اسلم حدثه عن ابيه قال سالني ابن عمر باوحي ويدي عن بعض شانه ابن عبد الله بن عمر باوحي سؤاله يعني اللي يراده أسلم العدوي نك اللي يراده وزيد كأبيهسا مولى عمر بن الخطاب وهان جري عن يريس وهان جري وحبضن بك يقانا ويلكيسي عبد الله بن عمر ودليبا سؤالي بل أباهي كورن سألني وحي ودي ابن عمر عن بعض شانه شان يعني عمر شؤونتي زي وحكم مذا فأخبرته بكسر الشيء أباه ساسوا وحزن وقسو جوجي فقال مركز وحجري عبد الله ما رأيت ما أركن أنا أحد قف قط ولقي بعد الرسول الله markii nabiga calayhi salaam laga soo tago iyo dhibashadiisii ayaa Abu Bakar iyo min xiina qubida laga bilaabo markii la oofsaday kaana ahaaday ajada mid ka dadaal badan ajada akthar jiddiya ka jiddiya iyo dadaal badan wa ajwada ka deeq badan ma arkin biir Umar waa waday amaantiisi hatta intaha ila ka dhameeyay min Umar bin al-Khattab عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصديس إلى وكدمي حتى انتهى إلى وكدمي من عمر بن الخطاب يعني إلى جيرديس خلافتيس أكد ما طيق قصديس يوردن إلى دمشق أنت سك الشيكي أما أنتيس ولو فسري سوى تفسير أو جرواي حتى انتهى الحديث عن قصتي بكشيكي من عمر بن الخطاب إلى قصديس كدمي خلافتيس وحي كدمي لا جاري خلافتيس إلى أكد ما طيق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن أبي درهم عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجل نبا سأل النبي ويدي عن ساعة نبي الله ساعة قيامه قرما يدعي باله يويدي فقال النبي وحيري متى الساعة بكيري قال النبي وحيري وماذا أعددت لها ورمحض الديار ستي ساعة وواحد بدن وحل السقاية فالساعة أدهى وأمر وحول بابا ساعة كعلص كول بهار بدن كورير بدن كخرار مركز ساعة القيامة ويديني ما حد ديار ستي أنا وبا عمل كيسوب ماشى الله فريسان ولا تجيه قال وحي لا شيء وحبا وحنا هيستون ديار سي ما لها إلا أني أنا أحب الله إلهي بان جعله والرسوله بان جعله صلى الله عليه وسلم وين بكفر يعني قص
إلهي الرسول كان سجعل هاي بيو فقال النبي وحير أنت أذيق مع من أحببت قفك جعلات معيسى أياد هانيسا هذا النبي محمد جعلاته معيسى ذهان هذا عدو النبي محمد جعلاتنا معه ذهان هذا الصحابة النبي جعلاته معه ذهان هذا كوا كلا حن جعلاته معه ذهان أنت مع من أحببت قال جعلاته معيسى وما ذهانيسا أيانيك لو جوابي قال أنس وحير فما فرحنا ما ننفرح بشيء فرحنا فرحنا بقول النبي أنكم فرحنا يوكله سأل النبي هذا الكيساس ما أنت أقول فرحنا يري أنت مع من أحببت قفك جعلاته معيسى ذهانيسا ولا جيل كيساد نقني سان كلمة أقول فرحنا ولي أنا هذا لو وحنا أقول فرحنا ما جرت بليه أنس ما حكينا فرحة قال أنس وحليه وحكينا فأنا أحب النبي كان جعله نسوقه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر روان جعله وعمر روان جعله كل هذه اللي معه هذا هاني وأرجو وحان رجينا أن أكون معهم إن معه هذا بحبي بسبب حبي جعلك درادي إياهم أيها أن جعله وإلا مع عمليانا سمين بمثل أعمالهم عمل كوضوك ليانا سمين به محبة إن أكون قانا رجاك قبابي بشارة عظيمة بشارة أدوين ويان مركا النبي عليه السلام محبة إيساء وهذا محبة النبي عليه السلام إن مروى بابا قيمة يسال ربا قولا وفعلا سنة ديسية منهج كيسا عليه السلام وحي قصور يقابين يضعف يتبردري الدوف وقار لكن وين داعدات داعدنا ما للربا قفك لكن النبي محمد بان شعر قفك كدهايا مركا لا شيء لا إنه المنايو لكن هذا مع ذلك أن الوكرين السنة ديسي هي طريقة ديسي منهج كيسي الوكرين درع كانت تاجن تقفك الرواية بوهيا قف رواية هي ويا الرواية بطمايا مركا داعد هرت هذه النقاة كارونها النقطة وحي مركز النقص يا ضعيف نما يا وحي تبردرية قابل بني آدم كورن باص لاسكاه مركا وحوليه هاي عمل كذا بيانا قارنه شعيل كاسان شعيل يا رجال يانا كو قارب له قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجري لقد كان وحاها فيما قبلكم dadkii inaga horeeyay min al-umam ummadii inaga horeeyay naasum dad baa kamidaha muhaddathuna loo waramo mukallamuuna la hadlo mulhamuun lagu ilhaameeyo sawaabka muhaddathun dad loo xadiiso hadalka waxa sawaabka oo carabkooda laga dhawaajiyo firaasa leh oo waxa maarata ay maleeyaan malahooda mar walba sawaabka u waafaqi waxay maleeyaan sax buu noqoni فإن يكون هدو جرى في أمتي أمتي إذا هدي دتك النوع عاسى كجيران أحد قف فإنه وحك هرجله عمر باك هرجله رضي الله عنه وأرضاه وحوها ملهم عمر رضي الله عنه على لسانه الحق عرب كيس حقه يا صار وصوابك وافق جري أو وحكوها ضلا صح يا صواب إنه قنجرتي أو مليه سحد وافق جري عمر رضي الله عنه وأرضاه زاد زكريا بن أبي زايد وحزيد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وحي لقد كان في من كان قبلكم dadkii inaga horeeyay min bani israa'iil reer bani israa'iila rijaalu rag bay lahaayeen yukallamuuna lala hadlo min ghayri an yakunuu anbiyaa ayagoon anbiya ahayn oo waxyi loo waxyooday oo loo waxyood aan ahayn iyo haddana la hadli jir waxbaa qalbiga laga tuuri ruya saadiqa wax bay maqlayaan haatufa carabkooda ilaahay roocooda yani waa ku dhijay nabi alayhi salaam mararka qaar waxaa jirta wax qalbiga qofka laga tuurayo ina ruuxa alquds nafatha fi rawci waa ku dhijir marka annahu lam tamuuta nafsuhu hatta tastakmila rizqaha marka qalbiga waxa laga tuuraya sawaab iyo sax ayaa laga tuuri sidaas oo loo waxyooday waxun buu iska dhaadhicin ama qalbigiisa soo dhici wixii asaga siduu u maleeyay ama uu yiri ama uu hadlay ayay noqonaysaa mulham baa la yiraahdaa waa ilhaam buu wataa marka ambiyana maaha fa in yakun fi ummati minhum ahad ummadayda kamida hadii dadka ay soo galayaan fa umar asaga waa banaanku taagan yahay waa ku jira radiyallahu anhu wa arda qala ibn abbas radiyallahu anhu wuxuu yiri min nabiyyin wala muhaddathin buu yiri min nabiyyin wala muhaddath آيات قرآن يملعصر آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى آيات داسو مركا عبد الله بن عباس وقدري وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ما ندر ولا محدث مثل لحظ الله وملهم أستغنى مجره إلا إذا تمنى هكذا قريي زيادة ابن عباس باوته ولا محدث زيادة ابن عباس ابن عاص ويانو أما تفسير أما واسك قراءة شاذة حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن أبي خالد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال وحير أن سمعنا أبا هريرة مقال رضي الله عنه يقول صغوله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحير بينما راع في غنمه حلي هو مديه نور أرجره أرجس إسكالجرة عدل الذيب الدرواقي باكسو الدولي ويما يدي
يا صور فأخذ منها شاة أنبياء ما كي لقاها لا معلم علامة النبي عليه السلام من معجزات ساقصها مري أو بكر باقصها مري وأكن هذا فأخذ منها عثمان فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها إلى أكرتي وكذا برضه إلى أكسرت فالتفت إليه ذيب يدي أما درواقي باسوفي فقال له وحكلها لا يجري من لها يوم السبع ما أنت سبعة أيها إسكاله درواقة ما أنت سما درواقة ما أنت وحلا إلى الجيران ليس لها راع وراعي يسجل غيري أنا جي السبع درواق موين فقال الناس تتكبها الله سبحان الله بينهم يعني ذيب تتكلم بينهم ما يبا هذا الدرواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بوحيري فإني أؤمن به أنا والرومين سرعي أنت هو علي وحي وأبو بكر والرومين وعمر والرومين وإن سبحان الله يتعجب كهذ لي مهيان وما ثم ما شاسنا من الجوي ما كنا نبي مخاطيك شناي أبو بكر وعمر من الجوي كل سؤال ذي إيمان كذي يقين تضو كل صهنا النبي عليه السلام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قيل عن هشام قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقلو يقول بين أنا نائما أورد رأيت الناس كبان أركي عرضوا علي أنا والله يبني دتك ليس بني وعليهم قمص قميصي دتك قبان ريو كارك دتك قميصي قبا فمنها وحاكم إذا قميصه ما يبلغ الثدي من ناسها قاري قميصي رهافة يقارك قبان وناسها قاري ومنها ما يبلغ دون ذلك مثل كسوك قبر وأركس وكسير أما كسير حق حدنته وعرضوا علي وحالي بني عمر واكر وإسمر وعليه قميص وسوى قميص قبا اشتره أجيده قميص أجيده وين سوى قبا واكر قالوا وحيدا فما أولته قميص عادي أجيده معها وقميص عادي الله حيدا إلا جيده ولا ما أقوله وحن واسعة وحكا لو ويانا محد كوضا وكفصرتي يا رسول الله قال وحي الدين الدين وحا مدحيا من شبا قريي بوحي عمر تفكر لغاية ميلا بابا كجاري بوحي سمي سيدا قميص كوكالي ودين دين وناقي سوي لقد أنا فهم أيه لي العلماء حديث سيدا لي إنه أبو بكر كدين بدنا oo dayaanada iyo istiqaamada iyo toosnaanta uu kaga horeeyay maxay yar hada waxa weeyaan maqaam madxi Umar ba hada laga hadlaya Umar amaantiis waa dhici kartaa Abu Bakar inuu qamiiskiisa ka weyn uu qabilaha qaar waxay dhimay ardi ba hada laga hadlay raytu an-naasa uridu alayya dadkii baa la ii soo bandhigay Abu Bakar dadka loo bandhigay nabiga uu arkay kuma jirinba intii meesha uu ku arkay Umar baa ugu waayelsanaa حدثنا سلط ابن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر رضي الله عنه مركي للضري ورنكي حماة قال كي يهود مجوسها وكل فتي جعل وحوق ذق لي لم ينحنوا صنعي حنون حسي جسمي كهيا هي مرق وكمرقا يوم حكم كي مامل كي وهي هي waxa ka dambeyn doonaya sida umurta ay noqon doonto ayuu walbahaari xanuun badan la warfaaday faqala ibn Abbas ba ku yiri wa kaanahu ابن عباس هذا الكيساسي وأكد إنه يجزعه أرجع كفض ذناي يجزعه ضمانته يزيل عنه الجزع بالوفسرايا كقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم وكرويان حتى إذا فزع أي حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم ملائكة الصوت كما قشيء وحي قد واقيسي ضاغطي مركي لقسي بفزع يا ربحي ماذا قال ربكم بإليهم قالوا الحق بالله قال مركا تيو كرويانو وحور عبد الله بن عباس يجزعه إنه جزع يرجح حنون كان كفضيه أو اطمئنان يحسلونه وكابوره أو يراد واد جودة واجب كذي يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كذيو ولا إن كان ذاك هذا جزع يرجح كهيا أذقه واحد يرجحين باتيرو لقد أصبحت وهذا هاتي الرسول والغد صحبت وحل صاحبت الرسول الله بالله صاحبته صلى الله عليه وسلم فأحسنت واد وناجسي صحبته لصاحب ديسي وصفي عن بعض النبي عليه السلام صاحب قيمة بدن داعضة قرب تاجن بعض أهد ثم فارقته وفارق النبي كلا تكتو النبي بعد انتي وهو عنك الراضي أو أصغر الراضي كابد يكاد انتي ثم صاحبته وحل صاحبته أبا بكر أيها هذا هجانك اللقبة وقرب النقطة وزير النقطة فأحسنت واد وناجسي صحبته صاحبني سي صحبتي سي ناجسي ثم فارقته فاروق ذي وكلا تكتو وهو عنك الراضي أصغر الراضي كا أيو كاد انتي ثم صاحبته وحال صاحبتي سحبتهم أصحابته هذه هراء قرب قواه صحابة النبي عمر أو بكر يا هذا صاحبتين فأحسنت واد وناجسي صحبتهم لصاحبته هذه مامل كودي عدل كودي أموره هذه بالهجاجسي ولئن فارقتهم ما أنت هدات فارغة أردمته لتفارقنهم والكتجي وهم أيقوا دمانتود عنك حق هذا الراضون الراضي كاه وحقوق ما أنت مالي قال وحمرك وحبه البهاري سوى ناكسن
أو قيمة إيا شرف له أيات كل من يساي قال وحير أما ما ذكرت من صحبة رسول الله وحآتر النبي قال صاحب لاهد ورضاه يرضيه سأور هذه جاها فإنما ذاك أرنكاس شيكتي من وفضلي من الله حق الله كيم تعالى كرهاية من به علي أنا وقال ضيستي وقال إله يؤتيه من يشاء غفور ربو إلهي سيا فضل قاس وأما ما ذكرت وحاشيت من صحبة أبي بكر أو بكر صحبتي سيا ورضاه ورضيه وقراضها فإنما ذاك كاسر من وقال من الله كاهتي فضلي جل ذكره ألا وإلهي من به علي وقال ضيستي وأما ما ترى من جزعي أرجع عن هذا أدي قبوجيني ساد قبوجيني إيبر قبوجيني يرجع عن جنب مقدار وار كيسو فهو أرجع حاسي من أجلك وأرجع درتها وأجل أصحابك أصحابتها على درتهم حال محون غندونا حكمك يا ماملك ماشى واحد جالسية ما لقى ودي دونا قيادة ما لقوه شين دونا وحاسة لما نكمل جاي حيار بدل ما يكون بارس يا قلبي يسجونه مهاجرين واكي كدر دارمي أنصار واكي كدر دارمي أعرابتي يرير بادية واكي كدر دارمي عمر رضي الله عنه ذميين يكون عهد هشيس كنبي ولا قري قال هذا واكي كدر دارمي هلا إيرانيو أنت صدم بكمل جاي عمر رضي الله عنه وارضاه والله ما كنت أرتين لو أن لي هدو يسونان لها ضلاع الأرض أرض المجد ضلاع معنا ملء الأرض أصل الضلاع وحلو يقانا ما طلعت عليه شمس وحقا يقرح ذو أصاب بحضه الدنيا لم يصاب حضايا مجد أو من ذهب هذا ما طلعان لها أرض المجد أو ذهب هذا لهان لها لافتديت به وحن كفرا لها من عذاب الله عذابك الله عز وجل بان اسك كفر لها أو اسك دفاع لها قبل أن أراه أنت أركن أنت قبل أن أراه أنت أركن عذابك أم إلهي سبحانه وتعالى وأذكر الله أبو ليه رواية كلا وحويري مركي الله أماني ولا يري عدالة يا وراك يا قيمة بدن بس سميسي يا وحويري وحن جعلان لها وحات شيكتي إنه نقض كفاف وحالي هذا يعني إن وحنا لا يسيرين وحنا لا يقبسنين يعني جعلان لها إثبتنا هذا قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن بريكة عن ابن عباس دخلت على عمر باروقا بهذا حديث حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عثمان ابن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نجري في حائط من حيطان المدينة مقالة المدينة بيره هذا بيرتا أوضن أي حائط لي هذا بيرتا النبي عليه السلام مال بيره لجوجي هذا صامر قصة ديرد ويان فجاء الرجل نبي من فاستفتح الباب كواريان اسكو حل سارا وفديو أيو فريس البي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري افتح له كفر وبشره بالجنة وبشاره ففتحت له كفري فإذا هو أبو بكر بن نغضي فبشرته وحنا أبو بشاره بما قال الرسول الله رسولك وحيري أو جنان أبو بشاره فحمد الله الحمد لله أنتو يري صاقري ثم جاء الرجل نك لا يمين فاستفتح فرس بو ضلبه يغفر أبو يري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري مك الله شيء افتح له كفر وبشره بالجنة أبو بشاره ففتحت له وكفر فإذا هو عمر ويان فأخبرته وحنوش شيء بما قال النبي بشارة النبي عليه السلام فحمد الله قال له كحمد يا عمر وصاقري ثم استفتح الرجل ما فرس فقال لي وحيري يفتح له كفر وبشره بالجنة جنة وبشاره مثل سدحات على بلو بلايا امتحان تصيبه كل عدونتا فإذا عثمان بن نغضي فأخبرته وأنشأ بما قال الرسول الله رسولك هذا الكيساسي بشارة يا امتحان كاس فحمد الله مدي بشارة يا جندي إلهي بكو حمدي ثم قال وحيري مصيبة الله شيء الله المستعان إلهي من كلمة ودي سنة إلهي من كلمة ودي سنة إلهي كلمة اللهم صبرا هذا الذي كمنه سيدي بين نقطة أصلاً إنها بيرات إسديبين أو حكم كيلو ديبي خلافة إياه على منهاج النبوة دي سيدة وهي أو قعنتي سكوها يا دينتي نميل ونفقر سيي أي هالك اللي ودي لي حتى بكيما كان النبي عليه السلام هذا الذي حكم إذا هاد قميص بلو جرين دوراها هسكسيبين مركا خلافة سيها قيمها بدن قوقايين فوضويين ما لها قيل هي أيو دي إنه كوريجيو حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوى بن شريح قال حدثنا أبو عقيل زهر بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام كان حكوا أبتر زهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن هشام الزهري وي هل كدعا قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي معي ساله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب وأسسوا على النبي وحق عنت سيجارة وهي عمر بن الخطاب وقعنتها هي قف عنت ضدك صعد بدون عنت أول دقن صحبة جارة هي كلسونين جارة هي وح وناقه كده حياة جارة أيها كم وقنا سوينا فهمين صحابته رضي الله عنهم جميعا والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.